waxaa jira caqabado badan oo ka hor yimaada hal abuuraha ganacsi waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa 10 qodob ee ugu muhiimsan qodobka koobaad ee caqabadaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhaqaalaha haddii aanu qofku haynin dhaqaale uu ku bilaabo ganacsigiisa ama uu ku dhaqaajiyo oo ku wada hadii xitaa uu bilaabay ma wadi karo qofku ganacsigiisa wana caqabad bay ku noqonaysaa qodobka labaad xuquuqda iyo sumadda fikradiisa ganacsi ee ganacsatuhu uu leeyahay taasoo ah carqalad ama caqabad qabsato qof kasta oo hal abuur ganacsiya marka uu bilaabo meel cid uga cawdana aanay jirin iyo sharci ka qabanaya si fududna loo qaadan karo maadaama isugu cusubitaanka shaqaale ku haboon ganacsigaagan haday noqoto inaad iyaga u heshid dhaqaalaad ku shaqaalaysiisid iyo haday noqoto xirfadii ay lahaayeen shaqaalahani waxa weeyaan falcelinta taban ee bulshada uu ku xeeran isaga oranaya ma karaysid ma awoodid waxaan kuma soconayo lacagta inta leeg ma haysid taas waxay keentaa in caqabad qofkii ku noqoto ay niyad jabiso waajihida warwarka ganacsi oo ah in markay bulshadani ku sameeysanayso ku tiraama awoodid waxan inuu qofkiina keeno inuu isdhaxma bixin karaysid kiradii malaha ma waruntooda shaqadan ma wadi karaysid marka waxa la falcelinta bulshadu ay ku sameeysaa isagana warwar ku keenta ka toddobaad takoorka fursadaha ganacsi taasoo keenta in qofka lagu yiraahdo wada yar tahay waad gabar baa tahay nin baa tahay inan baa tahay taas waxay keenaysaa in qofkii takoor lagu sameeyo laga saaro meesha maadaama hal abuur ganacsi qodobka sideedaad tartamahaaga oo kugu sameeyo sababo uu kaaga saarayo suuqa sida inuu adeegii ama wax soo saarkii aad sameeynayay uu ku sameeyo qiimo jab suuqa intuu ka taagay in laga sii jabiyo adigana khasaare ku gelinaya isagu maadaama awood u leeyahay iska xijin karo suuqa adoonad iska xijin kareen kadibna suuqaad ka baxday waa carqalad bay taasina kugu tahay qodobka sagaalaad helitaanka macmiil inaad ganacsigaaga cusub u hesho macmiil waxay noqonaysaa carqalad sababtoo ama taqaanid ilaha aad ka helaysid macmiilka oo ah halkeebu jooga macmiilkaagu wadadeedu maraysa taasina carqalad bay noqonaysaa marka koobaad qodobka 10 isbedelka ku imanaya xiriirka bulshada ee kugu xeeran isbedelka xiriirkaaga bulshada ee hore oo ah marka hore waxaad ka soo baxaysaa saaxiibo iyo qoys aan ku jirin ganacsi taas waxay kugu noqonaysaa carqalad waxay ku fahmayaan inaad iyaga xiriirkoodii goysay in aad wax kale u dhaqaaqday taa laftigeedu waxay kugu keenaysaa carqalad